dalku maanta wuxuu ka badbaaday dagaal sokeeye oo uu dirqi kaga badbaaday haddii uuna Muuse Biixi Cabdi madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland ka badbaadinahayn maantana Somaliland haddaba aynu taaganahay qarka ayay u saarnaan lahayd inay burburto. haddaba markii laga joojiyey Muuse Biixi Cabdi la isku dayay in dil toogasho halka rasaas dhafoorka lagaga qabtay ee qasab ku lugay lagu yiri ee sida loo bahdilay Subeer Awal meel kastuu joogay go'aan buu qaatay bal aynu dhageysano Suldaan Sabbayste oo isagoo arrinta ka hadlay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro inuu saaka amar ku bixiyay madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland in airport-ka reerkiisa ku toogtaan go'aan ka aad gaadheen haddaad beesha garxajistihiin haddaan Subeer wallahi waanu idin la qaadanay waxaad ka heshaan baanad leedihiin okay waxaad yeeshaan manu yeeri doonaa arrintu halkaas maraysa Suldaan Qabiil hadlay xildhibaanadii baa hadlay meel kasta laga hadlay ilaahay maanta horta wuxuu ku kala badbaadiyay Somaliland aqliga Muuse Biixi markii uu ilaaladiisii ku amray inaanay xabad ridin markii uu yiri talaabaha qaadineen noqdo haddaan noqdo dhibaato kala dhacaysa ee uu yiri waxaan lugeynayaa halka ilaa halka ee markii la yiri qolkii VIP halkii loogu leeyahay inta saar loo xagxagtay xildhibaanadii iyo dadkii la socday iyo martidii la socotay laga xagxagtay ayuu aayarka galay halkii maasatirka caadiga ah ee ay ka geli jireen dadka shacabka qofka sida loo xagxaganayo ujeedka laga leeyahay baan doonaynaa inaan fahmo hadda ka hor bishii hore inan wasiir hore ahayd Yurub Abibleyda ayaa iyadana sidaas oo kale loogu xadxagtay airport-kan magaalada Hargeysa VIP dileeyay ma geli kartid oo reerkaas tahay oo ma geli kartid iyadana warkii walaad yaa loo adeegsaday waxa loo adeegsaday haddaba maanta taliyaha airport-ka ciidankiisa ayaa bixiyay kan yare wasiirka ah ee maaragtay wasiir Fuaad ee airport-ka joogana waxa lagu yiri amarka bixi amarka isaga ka sii sareeyay ee wasiir Fuaad waxa xukuma moogtay khadar iyo gaabuush iyo Cabdiraxmaan Cirre groupkana halkaas ka sii amar qaataan waxay ku yiraahdeen markaa Cabdiraxmaan waa maxay madaxweynihii hore Muuse Biixi baa falogyada iyo waxan kaaga fiican oo isagii baa la hadal hayaa suuqa social media isagii la hadal hayo waa maxay kulmiyahan iyaga isku jawaabay caalamkii haysta yaaba in hadal hayaba xalay Soomaaliland daawanayna ka himnaarkan Muuse wadanka horta yaa ka taliyay bay sidaahdeen nimanka kadib waxa la yiri madaxweyne Muuse Biixi waa maxay ilaaladan iyo imaaraadadan uu tagayay casuumadahan iyo waxan wadanku laba madaxweynaha waa in ninka go'aan laga gaaro maantana khatar waxay ku gaadhay hadday ilaalada Muuse Biixi ridi lahayd waxa laga yaabaa madaxweynaha hore Muuse Biixi Cabdi rasaas ku dhici lahayd halka uu ku geeriyoon lahaa ama ku dhaawacmi lahaa ama labada ciidan isku dhici lahaayeen kadib buuqaasi markuu dhacana ay ka dhici lahayd galbeedka Hargeysa iyo Berbere iyo Gabile iyo Wajaale iyo madaxtooyada Dacra loogu dhaco ila madaxtooyada lafteedii waxay ku dhex taalaa Muuse Biixi gurigiisa agtiisii iyo baarlamaankii iyo wixii oo dhan oo dawladdiina halkan bay ku taalaa marka mushkiladii haddii ay sii badato waxay keeni kartaa dhibaato kale haddaba bal haddii aanu Muuse Biixi Cabdi maanta aqliyada ku kala saareen ay garan waayeen xukuumaddu waxay sameysay maanta khatar buu galay haddaba maxay sameeyeen Subeer Awal dhamaantii hadda uu baraarugay Sabbayste wadarkasaan salaadiintii kala wadarkasaan Sabbayste wuxuu suldaanka inaga daba hadla dhafoorka laga toogto suuqa waxa dhici doonta ninka maanta Muuse Biixi ka soo horjeedsada arrinta lagu sameeyay taageero dawladda iyo waxa la yiraahdo waa iska caadi Muuse wadwata ciidan muxuu isagu ciid kuwii magaranaysa Subeer Awal ugu horeeyay dawladda kaga jira horta marka ugu horeysaba la soo adeegsan doona imika yar kadib waxa shir jirayd qaban doona khadar iyo wasiir Fuaad iyo waanu ka raali galnaa arrinta dhacday ilaalada un baanu celi sharcigu ma banaynayaan ciidan kale laga waxa saakhay doonaan madaxweyne hore xasaanad buu leeyahay waa maxay dhibaatada ku jirta hadduu ciidankiisu wato ammaankiisa maadaa sugaya ammaanka madaxweyne hore Somaliland waa in la sugo Daahir Riyaale yahay hadduu madaxweynahan yahay cadow badan buu leeyahay dhibaato badan baa wadanka ka dhici karta waa la dili karaa isku dhac inta cid kale dhibaato u geysato aladiisu waxay gaarsiinayeen meel
ولا سوء اللي محاعيبة كجرتها صور كايرة لقى قاضي مدحوينة ساو السعودية عيدا ما انت كحنت حي عبدالرحمن عرو موحو كحن يهي إنو أركم مصبيحي أولا إلى علينا يو بابور سعوتا مدنا أكسونا مصبيحي عدو سنة ميوحو كاقو ريتيني مصبيحي عبدي وانينك إساقو أيار ربي إن عبدالرحمن عرو لغو ريتيو إلا يكامبين كيسي إلا يوحا صورنا وحو ربي انتو توصل لغو ريتيو رنتا فالك الله شيء حقيقة لأوغادو سي آنو الدالكو دباتي أوغلين سي أو حسبها وطنية أومن سي نمانكا قايلين ay mar u qabsadaan buu isku soo sharaxay ugu talagalay inuu waayo ugu talagalay inuu ku wareejiyo laba doorasho isa saar u qabtay Cabdiraxmaan Ciro gabanimo ku sameeyay adoo halka fadhiyo intuu gacanta saa ku soo qabtay kugu wareejiyay dhibaato iyo dagaal ku hoogeen sabiisti wuxuu yiri inamada ciidanka iyaga halkaasi saa ugu faraxsanaa inaa loo xafladay wartii Cabdirasaaq Teero oo maanta taagan oo weyn wartii kuwii kale ee ciidanka saa ugu farfarxaya la ogaa war buurtii gacan libaaxaynu ogeyn ciidankii booliiska sidii dawladda loogu galay war dagaalkii laascaanood aynu ogeyn wadani halku ka keenay war wadanka ma waxaad ugu tala gashay wadaniyo inaad dumisaan haddaad rabtaan inaad dumisaan oo gaasii kafrid sidataan dee laba mid un baa noqon in la iska kiin qabto iyo in la gubadii wadankii meel walba ilinka ololin maysaane marka haddii aad ugu tala gashaan inaad wadankan ololisaan oo meel kale ku celisaan wallaahi billaahi talaahi hadduu maanta dagaal sokeeye ka dhaca Somaliland inaan dib u dambaysa Isaaq iyo Somaliland iyo hadal iyo hanti iyo qurux iyo hargeysa iyo berbere iyo barwaaqo inaan dib loogu noqonin ninna inaanu ka faa'iideen nin ka faa'iidaya inaanu jirin reer Sheekh Saaq nimanka la yiraahdo dhammaantood hantidii ay lahaayeen Somaliland bay geliyeen runta marka la sheego maanta camirnaanta hargeysa iyo berbere iyo burco iyo booram iyo wadankaas hantidaa taala walaahi bin ooleen Cabdiraxmaan Ciro hada sidaa ku sii wato haddii la ixtiraami waayo sidii ayaan xukuumadii hore kulmiyo u ixtiraamaysay daahir riyaale sidii dawladii hore kuwii ka horreeyay u ixtiraamayeen haddii la isku ixtiraamin oo xabad suuqa lala dhaca madaxweynayaashii hore waa bareed waa dhafoor taabasho shalay baa inamadii suuqa halkaas laga soo qabtay dhafoorka lagala dhacay xabada ayaa la yiri waa shirqool oo dawladii dishay qonjuuq iyo jabaq laga oran maanta aad arkaysaa kan kuwii ka horreeyay aad arkaysaa maxaynu sameynaa marka dalkan iyo dadkan maxay ugu tala galeen Cabdiraxmaan Ciro iyo tiimkiisu waa su'aasha aan rabno jawaabteeda inaan helno okay haddii ay taasi sii socoto dalkan iyo dadkan Cabdiraxmaan Ciro uu ku gudbiyay kabaha lagala baxaya wallahi kabaha inta lagala baxo ayad madaxtooyada toos kaga bixi doontaa laakiin arrintaasi hadduu raali gelin ka bixin waayo Cabdiraxmaan Ciro uu oran waayo waan qaldamay walaalkii Musabbix Cabdina wala oo uu wasiir galaafan weyda arrintaasi ta ka dhacda nagu jiro waxa weeye wixii ka dhaca kuma jirno nin kastoo ciidankaaga qaadan nin kastoo dalkaaga inta leedahay baad qaadan sidana waxa weeye ceeb iyo gunnimo inta in ka badan lama sii eegin barnaamijka share kare la wadaaga asxaabtaada aad iyo aad baan ku salaamayaa